wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay si adag ugu jawaabtay hadallo ay ku tilmaantay kuwo marin habaabin ah oo ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Israa'iil. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in Somaliland ay si buuxda u diidan tahay eedeymaha iyo hadallada ay ku tilmaantay kuwa dhaawacaya xaqiiqda taariikhiga ah iyadoo xustaynayay in Somaliland ay dib ula soo noqotay madax-bannaanideeda 18 May 1991 kadib burburkii midowgii hore iyo dhibaatooyinkii waaweyn ee shacbiga Somaliland soo maray. Wasaaraddu waxay sheegtay in booqashada taariikhiga ah ee madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ay muujinayso kobaca xidhiidhada caalamiga, kalsoonida diblomaasiyadeed iyo xaqa Somaliland u leedahay inay la macaamisho dunida inteeda kale. War-saxaafadeedkan ayaa lagu adkeeyay in ka badan 30 sano Somaliland dhisaysay nidaam dowladeed oo ku salaysan nabad, dimuqraadiyad, doorashooyin iyo hay'ado shaqaynaya, iyadoo sheegtayna in xaqiiqooyinkaasi aan lagu tirtiri karin hadallo siyaasadeed ama cadaadis diblomaasiyadeed. Sidoo kale Somaliland waxay sheegtay in xiriir kasta oo la yeelatay dalal kale oo ay ku jirto Israa'iil uu yahay go'aan ku salaysan danaha gaarka ah, amniga gobolka iyo iskaashiga dhaqaale iyo ixtiraamka labada dhinac. Somaliland cidna kama raadinayso ogolaansho ku saabsan xiriirka caalamiga ah, mana ogolaan doonto hanjabaad, dacayad ama cadaadis siyaasadeed inuu go'aamiyo mustaqbalkeeda, ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Dowladda Somaliland ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonto siyaasadeeda ku dhisan nabadda, xasiloonida, iskaashiga caalamiga iyadoo ilaalinaysa madax-bannaanida iyo rabitaanka shacabka Somaliland. Warbixintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Somaliland xoojinayso dadaaladeeda diblomaasiyadeed iyo halka xidhiidhada cusub ee caalamiga ay noqdeen arrimo si weyn looga hadal hayo gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba dunida.